cabdishakuur saciid cabdi oo kamid ah dhalinta aqoon-yahanka ee ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa xilli maanta wareysi dhinacyo badan taabanayay telefishinka caalamiga GTN ayaa waxa uu ka hadlay dhalinyarada muddooyinkii u dambeeyay ku qulqulaya dalka Qatar isla mar ahaantaana loo qaadanayo ciidamada waxaana kamid ah hadaladiisii sidatan shaqalaanta maanta dalka ka jirta dhalinyaradu waxay doonayeen inay dalkooda hooyo ay ka helaan shaqo abuur markii ay shaqo abuur ka waayeen waxay micin ka bideen inay wadamada shisheeye ay qaar u taariibaan qaar ay askar doontaan oo sida Qatar oo kale marka taasaan u maleynaya inay ka tahay iyo wadaniyad la'aan dalka ka jirta way dhalinyaradii haday Soomaaliland daran yihiin dalkooda u aamin lahayn dalkoodii markii ay arkeen inaan waxba ka soo naasacadeen waxa ay door bideen inay Qatar aadaan waana sababta maanta kaliftay in dhalinyarada reer Soomaaliland badidood ay xagga u sii qulqulaan wayda xukuumadda cusub qorshe uga yaala dhalinyarada haba yaraatee ma jirto ayaan u maleynay waxaan halkan baaq uga dirayaa in dhalinyaradii reer Soomaaliland ee sanad walba jaamacadaha ka baxaysa inuu u sameeyo shaqo abuur laba inuu u jiheeyo mashaariicda dalka mashaariicdu way badan yihiin in dhalinyarada loo furo garoomo ay kubad ku ciyaaraan in dhalinyarada laga qayb galiyo horumarinta dalka in dhalinyarada la baro wadaniyada dalka sidoo kale qodobka saddexaad madaxweyne markii aad ololaha ku jirtay waxaad ballan qaaday in dhalinyaradu ay ka qayb qaadan doonaan dibadejinta dalka iyo horumarinta dalka qodobka saddexaad dhalinyaradu maanta waxay u baahan yihiin in siyaasadda laga qayb galiyo in dawladda laga qayb galiyo in amniga laga qayb galiyo in mashaariicda dalka laga qayb galiyo in askarta in maanta la qoro askar waayo dhalinyaradii reer Soomaaliland maanta dal aynu isku islaam nahay ba xabada isaga dhigaya marka madaxweyne waxaan kula talin lahaa dhalinyarada inaad jahayso askarta laga qorayo Qatar ee qadarna qaadanayso inaga u baahan hadeenahay jamhuuriyadda Soomaaliland dalku maanta wuxuu u baahan yahay waa shaqo abuur dhalinyarada in laga qayb galiyo siyaasadda dawladda amniga iyo horumarinta dalka iyo in loo sameeyo shaqo abuur askarna la qoro ayaa muhiimsan dhanka kale waxa uu carabka ku dhuftay wada hadalka u dhaxeeya dalka Soomaaliland iyo sidoo kale dalka Soomaaliya isagoona tusaale u soo qaatay hadalka u dhawaan ka dhawaajiyay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana kamid ah hadaladiisii sidatan marka wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa ay tahay nabad iyo barwaaqo geeska Afrika ku saabsan way hadaynu wada hadallo wax badan ayaa runtii dhalanaya haddaan la wada hadlina waxa imanaya peace conflict in nabadii la isku khilaafo laakiin haddii la wada hadlo waxa imanaya wax loo yaqaan prosperity barwaaqo stability xasilooni sidoo kale in situation of bulshada ayaa imanaysa marka intaas oo dhan baa imanaysa wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliyana waanu soo dhaweynaynaa in la wada hadlaano ceeb maaha wada hadal xor iyo xalaal la wada doonaya waayo 27 sano ayay Soomaaliland jirtay in 27 ka sano ay Soomaaliland jirtay taariikhdii ay lahayd iyo halgankii iyo xornimadii in Soomaaliya laga hadlaa waa waajib Soomaaliya sidaas ilaa ka daalig iyaguna way wada hadlaan wada hadaladuna waa wada guul aan wada hadallo aan wada heshiino weeye intaasaan anigu leeyahay wada hadaladana waan soo dhaweynaynaa Soomaaliland inay mid noqotana waan soo dhaweynaynaa madaxweyne Musabbixina waxaan leenahay wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya madaxweyne ku tuntuuso sidii hore ee loola hadli jiray Soomaaliyana wayna wax ka bedesha sidaas aan leeyahay waa Cabdiraxmaan Ise telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco.